gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daade oo telefishinka Star maanta wareysi gaar ah ku siinayay magaalada Burco waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sanaag waqti xaadirkani gudoomiyaha waxa uu tilmaamay in xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag ee waqti xaadirkani aan ahayn mid wanaagsan isagoo ku sababay arintaasi shaqaqooyinka soo noqnoqday u dhaxeeya beelaha walaalaha wadadaga qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sanaag waxaana uu gudoomiyuhu dhaliilo xooggan u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland oo ku dhaliilay in aanay arintaasi xalinteeda daacad ka ahayn waqti xaadirkani gudoomiyaha ka hadlay arimahaasi waxa uu yiri wallahi gobolka Sanaag xagga roobka alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad buu rooban yahay roob wanaagsan oo lagu diirsaday ma sha Allah xoolaha barwaaqo ku nool yihiin baa yaala laakiin gobolka guud ahaan nabadgelyadiisu ma fiicna khaasatan marka laga soo hadlo saddexda degmada ama degmada Ceelaf Weyn iyo degmada Garadag oo ay fadhigaab xukunto ama Sanaag xukunto ma qurux badna way jirtaa in dhibaatooyin badan oo soo noqnoqday baa ka jira taa dhaliishada waxa iska la dawladda shacabkii degani waxa u dhaxeeya dawladda marka arintaas anagu waxaanu ku dhaliinaynaa mar walba dawladdu inaanay doorkii ay ku lahayd arinta aanay qaadan dad ba isku dhaca falbaa dhaca dadkii baa marka la kala raraa meel baa la kala geeyaa waxba laga qabto dadkii waxaan geystay lama dabagalo saddexda casho ugu dambeeyay xaaladda nabadgelyo ee labada degmada khaasatan Ceelaf Weyn aad iyo aad bay u xuntahay sababtoo ah waxa weeye doorkii dawladdu lahayd ayaa ka maqan meesha marka waxaanu ka codsanaynaa ummadda nabadgelyada jecel reer Soomaaliland reer Togdheer iyo dadka kale ee ku dhow ama jaarka la ah sida reer Laascaanood waxaan leenahay arinta hal laga hawl galo wallahi anaga xisbi ahaan uu tagay gudoomiyaha iyagu musharaxa madaxweyne uu tagay Laascaanoodna uu tagay oo ka hadlay arinta Ceerigaabo markuu joogayna madax badan baa ka hadashay waanu soo maray oo indhihiisu ku soo arkay nabadgelyo darradu isagu jawaayay Ceelaf Weyn soo maray uu istaagay in fadhigaab waanu soo aragnay waxa ka jira marka waxa weeye ra'yiga uu qaba waxa weeye xisbiga uu ka qaba dadka in la nabaday waayo anagu maanta dawladda gacanta kuma hayno anagu xisbi mucaarada baanu nahay xaq waxaanu u leenahay inaanu sheegno dhaliisho halka ay ka jirto hadda iminka gobolka Sanaag waxyaalaha la isla dhaxmarayo waxa kamid ah inay dawladdii hore ee dadku dhaliisho badan u soo jeedinayay kaga firfircoonta xagga nabadgelyada dawladda maanta dhisano Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ka yahay marka xukuumadii kulmiyay isaga dambeeyay waxaad moodaa in arinta aanay marraba daacad wax la yiraahdo aanay ka ahayn gudoomiyaha gobolka Sanaag ee xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo ay si weyn uga biyadiideen shacabka kala duwan ee gobolka Sool waxaana gudoomiyaha arintaasi ka bixiyay xal isagoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku dhaliilay inuu magacaabay wasiiro shacabkooda aflagaadooyin u geysanayo waa sida hadalkiisa u dhigay waxaana uu yiri haddaanu nahay gobolka Sanaag iyo haddaanu nahay gobolka Sool iyo shacabka Soomaaliland oo dhami arinta wasiirka maaliyadda ee u soo jeediyay aflagaadada reer Sool waxaan leenahay arinta xaal iyo apologies baan ka bixinaynaa arintaas arin reer Sool qabata maaha reer Sool waa gobta Soomaaliland waana la yaqaanaa nin kasta oo Soomaaliland ku noolay wuu og yahay inay Soomaaliland taam noqonayn inta Sool ka maqan tahay anigu waxaan daaw qaatay marka aan sidaa u eego wasiir hore isna caytamay oo ka tirsan xukuumadda kulmiye ee dambe Muuse Biixina waa madaxweynuhu ka yahay marka Muuse Biixi ma wuxuu magacaabay wasiirada dadka shacabka ay xukumaan caaya su'aasha imika meesha taala way Muuse Biixi madaxweynuhu ma wuxuu magacaabay wasiirad caytama anagu waxaan u haysanaa wasiiradii wasiir qaran yihiin laakiin wasiir intuu soo fariisto ama qaran dhan oo habla caaya ama qaran dhan oo qabiila caaya wallahi arintaas dawladda kulmiye dambe la weydiinaya nuu qaldamaya ama wasiir ha noqdo ama cid kale ha noqdo laakiin waxa weeye war qabiilkii ninka muxuu kaga jawaabay arintiis waxay guri barwaaqo hadduu isagu qaldamay wasiiraha in reerkiisa apologies bixiyo gabagabadii waxaan weydiiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee xisbiga mucaaradka ee wadani sida uu arko in xuska munaasabadda maalinta qaran ee 18 May laga dhigo 15 May gudoomiyaha ka hadlay arintaasi waxa uu yiri waanu distorjeen baan u arkaatay maalin baa la cayimay maalintu way dhilmay in la kasal gareeyay baan anagu arkay dhilmi waxa loo soo rabaya ama khayr looga faa'iideysto adhe hal la qalo oo maalinta ayaam suuq la marina dadku waxay ku dabaaldegayeen masaakiinteena caydhowday dad badan oo caydhaa bay ruleeyeen xoolaha dariiqa lagu marayo ee ciidamada la isugu keenayo haba laga kaaftoomo maalinta maalin khayr ah loo bedelo ayaan leeyahay oo dadkeena xoolaha loo qalo
iyadoo ku munaasabta laakiin hal la raro 15 May loo raro waxaan u arkay in la kasal gareeyay in ay ku sii socodso meesha ka baxdo وخالد بكيلي فقانا رقو حرطة ستار تيفي برعو